gabadhan may furanta mise ma furno commenti ku soo qor way furantahay gabadhan way furanta watahay waxaan rabaa inaan ka hadlo furiinka ma ciyaara ama markii furiinka lagu ciyaarayo waxa aad adiga aad niida kugu jiro ama waxa afka aad ka dhehayso maxay diinta ka qabtaa Hudo iyo saaxiibkeeda ama ninkeeda ma kala tageen intaas ayaan ka hadli doonaa waa walaalkiin Maxamed Eko idin leh soo dhawaada waa Blue Star Media maalmahan waa hawadan ka maqnaynay maanta waa soo laabanay haddii Ilaahay yiraahdo subscribe like share commentiga waa xagaaga insha Allah waxaan ku leeyahay walaalkay walaashay soo dhawaada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah xabiibkeena ku saliyay sallallahu alayhi wasallam nabigeena wuxuu yiri labo shay kafta ma galan gabadheeda baa ku siiyay iyo qof u dhaw camal waa iga furantahay kafta ma gasho hadda hudaamun maanta wuxuu ku furantahay hal daraaqo kaftan video iska sameeyay TikTok qatartiisa way ku furantay shii qaartiin u taga waxa artiin sameeya ya hadda fururta xataa oo dhaa ma ku furay isnimada ma iska dhaaftay saaxiib markuu la qof diin leh aroosaan oo kala waay watahay sida aad daawatay iyo macnaha hordhacayga runtii furiin ciyaar ma geli karo tusaale xitaa haddaa aan la joogin familkaaga ama xaaskaaga aadan la joogin haddii qof ay ku meeriyaan waxaan sida saansaan aad dhahdo baashaal ay kaa tahay way kaa furmaysaa gabadha xaaskaaga ah oo guriga ku joogto uma baahna in ayada maxaa la dhahaa ii sheeg magaceeda aad sheegtay xitaa maxaa la dhahaa sheekhayaasha qaar waxay ku leeyihiin magaceeda inaad sheegtay xitaa ma u baahna laakiin aniga iblaayadeeda saansaan haddaad dhahdo baasha waxa waaye ereyga horta furiinka ah ciyaar ma noqon karo marka haddaan sheekadeena usoo noqono sida aad aragtay ama aad daawatay Hudo videoga markay soo dhigtay video kale ay keentay oo ah war macnaha gabar iyo wiila soo jawaabay oo macnaha video waxay sameeyeen dawado oo way ka falceliyeen marka iyo commentiga gadaali dambe way iska xirtay ani walow aan leeyahay ama gadaal dambe wixii aan dhihi lahaa gadaal aan ka dhihi doonaa laakiin commentiga way iska xirtay wiil iyo gabara waxay videoga waxay ku sameeyeen double waa reaction oo kale marka waxay dhaheen gabadhan ma furan tahay wiilka wuxuu leeyahay gabadhan way furan tahay weydii sheekhaasha gabadha ayadana saas oo kale waxay leedahay gabadhan hadday furan tahay commentiga marka laakiin Hudo way ka soo hadashay 3 saac kadib videoga hore ay ku jilayaan jaliinka codka Shaadi Sharaf ay ku jilayaan marka codkan horta Shaadi Sharaf iyo wiil kale oo asigana talent leh oo Shaadi Sharaf ay riwaayad la dhigi jireen ayaa leh codka kama taagno problemka laakiin waxa aad ku ciyaaraysid fiiri Shaadi markay jilaysay oo ay dhahaysay waxa ay dhahaysay odaygeeda ma ahayn haddii laakiin Shaadi odaygeeda ee la sameyn lahayd waxaa la dhahaa sheekadan mar hore Hudo tan ku dhici lahayn waa mar hore ayadana Hudo ay ogaan lahayd laakiin waa filno ahaa laakiin Hudo waxaan leeyahay walaasheeda macnaha actingkan waa run codkaaga ma aha adiga waxaa ku candacoonaysaa ama aad leedahay ninkeyga videoga hadda ay soo duubtay ninkeyga codkiisa ma ahan aniga codkeyga ma ahan okay laakiin haddii hadda oo aniga aan raacraaco tusaale qofaa wuxuu dhahay aniga waxaan aadayaa Marko ama aniga waxaan aadayaa Hargeysa ama aniga waxaan aadayaa Holland okay anaa dhahay aad marka waxaa ku qasbantahay wax ma leedahay aniga waxaan aadayaa Holland aa raacaysaa laakiin ma dhihi kartid sooma laakiin waxaa raacaysaa ereygaasaa raacay ereyga marka ficilka waxaa laga fiirinayaa walaashay qaali
waxaa laga fiirinayaa qofka adiga aa ku dhehaysid. hadda odaygaaga ama adiga haddii labadiina oo macnaha actingka oo asigan gabar kale oo ku dhihi lahaa oo la jeli lahaa adigana wiil aa la jeli lahayd okay ahaan lahayd. laakiin hadda idinkaa jelaysiin idinkoo isqaba, problemka meeshuu ka taaganya. marka hadalka aan soo gabagabeeyo aniga waxaan leeyahay Hudo iyo odaygeeda Soomaalida way warjecel yihiin. Soomaalida kaliya waxaa la gaadayaa hal eray oo si xun u baxa. abaayo waxaan ku leeyahay please ereygan aa samaysay waa ficil odayga adiga ma ahe, adiga wax ma haysid, laakiin odaygaaga wuu actigareeyey, wuu raacay qofka oo macnaha ereygaa uu ku dhahayana xaaskiisa waaye. marka please walow xitaa la cogsan karo hal dalaaq way baxday markaas rajacto isla markii dhahay, ma fahanti. marka Soomaalida way buubuuninaya. aniga tala ahaan waxaan ku siin lahaa in aad ka bixiso videoga bilkulyan. haddii 500 ama 5,000 ay aragtay yuu kusii jirin videoga ka bixin, intaasaan ku leeyahay. laakiin arrintaa ha ka harin oo weydii culumta ama marka arrintaa ha ka harin oo weydii culimada ama sheekhayaasha oo adiga waddanka aad degan tahay Jarmalka jooga. marka waxaan ku leeyahay ama dhammaantiin idin leeyahay waa walaalkiin Maxamed Eko. waxaan leeyahay dhammaan inta ku xiran please like, subscribe, share, comment noo sameeya. waa walaalkiin Maxamed Eko mar labaad iyo saddexaad waxaa idin leeyahay nabadiino.